kulo wanaagsan daawadayaal wararka cayaarahana waxaa ka mid noqon doona tababaraha kooxda Swansea City Mikel Lorab oo iska fogeeyay wararka sheegaya inuu qabanayo kooxda Barcelona. Kooxda Tottenham oo u jeesatay horyaalka Spain kana doonaysa weeraryahanka kooxda Valencia. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadayaal ku eegaynaa ee u diyaar garooba. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Swansea City Mikel Lorab ayaa iska fogeeyay wararka sheegaya inuu qabanayo kooxda Barcelona. Sport Small ayaa daboolka ka qaaday in tababaraha kooxda Swansea City Mikel Lorab uu beeniyay inuu tababarayo kooxda Barcelona oo ay wararku aad ula xiriirinayaan. kadib markii uu iscasilay tababarihii hore ee kooxdaasi Tita Villanova ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in Barcelona laacibkoodii hore ee 1994 haatan haya kooxda Swansea City uu noqonayo bedelka Villanova. mar ay wariyaashu weydiiyeen in arintaasi jirto ayuu Mikel Lorab ku jawaabay ma jirto wax aan ka maqlay arintaasi miyaa la igu soo daray liiska kama hadli karo arintaasi maxaa yeelay ma jirto cid ila soo hadashay. Mikel Lorab ayaa leh khibrad ku aadan horyaalka Spain isaga oo horey macallin ugu soo noqday kooxaha Getafe iyo Mallorca. tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa xaqiijiyay in kabtanka kooxdiisa John Terry in xilliyeedka dambe ahaan doonin mid ammaan ah ayna haboon tahay in uu ismuujiyo si uu u qabsado boos joogto ah oo kooxda line-up kaga noqon lahaa. daafacan 32 sano jirka ah ayaa horey ula soo shaqeeyay Mourinho inta u dhaxaysay 2004 ilaa 2007 oo uu Jose Mourinho joogay kooxda ka dhisan galbeedka London ee Chelsea. shabakada BBC da ayuu Mourinho ku yiri ma sugna amaankiisa kaliya wax ammaan ka dhigi kara Terry waa saaxiibtinimadeena balse shaqo ahaan ammaan ma aha. waan garanayaa waa laacib aad u wanaagsan balse waxaa haboon in uu ismuujiyo sida ciyaartoyda kale sameeyaan ayuu sii raaciyay Jose Mourinho. dhanka jir ahaan waxa uu u baahan yahay Terry in uu qabto shaqo badan kuna dadaalo in uu ka fogaado dhaawacyada maxaa yeelay taasi gadaal ayay u celinaysaa ciyaaryahanka ayuu yiri Jose Mourinho. mar uu ka hadlayay arinta Fernando Torres ayuu Mourinho yiri waxaan aaminsanahay in aan u garanayo si wanaagsan ka laacib ahaan waxa uu jecel yahay in kooxda u soo bandhigo wixii awoodiisa ah waxaana isku dayayaa in aan caawiyo sida aan ciyaartoyda kale u caawiyo ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa Jose Mourinho. waxay noo soo socota warbixin ku aadan weeraryahanka kooxda Liverpool Luis Suarez oo markaasi laga yaabo inuu ka tago kooxdaasi balse aynu eegno dhinaca iyo kooxda Tottenham. kooxda Tottenham ayaa u jeesatay horyaalka dalka Spain waxayna ka doonaysaa weeraryahanka kooxda Valencia sida ay ku waramayso wariyahayaga Fardowsa Salah. kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa miiska u saartay kooxda Valencia dalab lacag oo ku kacaya ilaa 23 milyan oo geni si ay loo wareegaan weeraryahanka Roberto Soldado. Tottenham ayaa u baahan gool dhaliyo cusub kadib markii la caddeeyay in Adebayo uu kooxda ka tagayo waxayna Tottenham u taagan tahay xiddigan reer Spain sida laga soo xigtay wargeyska Daily Star. Tottenham ayaa gudbisay lacagta ay ku doonayso xiddigan goor hore Osaka ah laakiin wali hadalka ma soo bixin kooxda oo xiddigan ka tirsan yahay ee Valencia. Fardowsa Salah Newcastle TV mahadsanid Fardowsa. weeraryahanka muranka badan ee kooxda Liverpool Luis Suarez ayaa ku soo laabanaya tababarka kooxda dhamaadka toddobaadkan ee ku eg axada beri ah. Daily Mirror ayaa sheegtay in Suarez uu dalban doono inuu ku biiro kooxda Arsenal taas oo ka dhigan inuu kooxda uga baxayo ballanqaadkiisii ahaa inuusan ku biireyn koox kale oo ka dhisan dalka Ingiriiska. Real Madrid ayaa sheegtay iyadoo in aysan bixinayn wax ka badan 25 milyan oo geni haddii ay iibsanayso Suarez. Liverpool waxa ay dalbanaysaa 40 milyan oo geni. Suarez ayaa horey looga soo xigtay in uu aad ula dhacay hadalka ah in ay daneynayso kooxda Arsenal. winka ayaa hadda u muuqda wadada kaliya ee u furan in ay tahay Luis Suarez kadib markii Real Madrid ay ku qaaliyeysay laacibkeeda Higuain oo uu heshiiska shakhsiga ah la gaaray kooxdaasi. haddii Arsenal ay ogolaato in ay bixiso 40 milyan oo geni ayay u muuqanaysaa Liverpool in ay qasab ku tahay in ay iibiso Suarez oo dalbanaya inuu ku biiro koox ka ciyaaraysa horyaalka Champions League. xubintii sportiga aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee Universal khiyaar xilligan waanaga intaas mar kale idinku duwo stuudiyaha magaalada London.